shicibka Soomaaliyeed meel kasta oo dunida joogtaanba waan idin soo salaamaya. Soomaali waan ognahay dagaalkii farmaajo lagu qaaday ee muddada dheer socday. Kooxdii Jasiirada Ganeed iyo saaxiibadoodii dibadda waddamadii jaarka ahaa ee qarannimada Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed ka soo horjeeday ee farmaajo ka soo horjeeday. Farmaajo waa qaranka Soomaaliyeed, waa dowladda Soomaaliyeed. Farmaajo wixii lagu haystaana dowladnimada ahayd. Kooxdii isbaaristayaashii kuwii isbaarada dhiganayay, kuwii qarankani iibiyey, kuwii burburiyey iyo kuwii saaxiibka la habo waa kuwii dagaalka ku qaaday. Muddo dheer bay dagaal ku hayeen, laakiin dagaalkii kuma aysan guulaysan. Ay ku hayeen Maxamed Farmaajo, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isagaa ka guulaystay. Dagaalkii weji kale loo bedelay iminka in qabiilkii uu ka dhashay dagaal lagu qaado ayaa la isku raacay. Kenya iyo Djibouti iyo intii Soomaali nacbeed oo dhanba waxaa la isku raacay in reerkiisa dagaal lagu qaado. Waad ogeydeen Kenya maalin iyo habeen waxay duqeynaysay Garbaharre iyo Gado. waxa Soomaali siyaasiya maca mujrimkii qalbi madoobe cid ka hadashay weligeen meedaan anagu telefishin soo fadhiisat oo ka hadashay. Laakiin farmaajo habeen dharar bay ka hadlayeen oo ku banaabaxayna bay oranayeen. Laakiin cid dadka Soomaaliyeed ee Kenya duqeynayso ka hadashay ma jirin. maanta dagaalkii nuuc kale loo bedelay, waxa lagu bedelay dagaalkii farmaajo, dagaalkii qabiilka oo ka dhashay Marraxaanka. Soomaali way heshiisay, waxayna ku heshiisay in la gaalo doorasho dowlad goboleed walba inuu laba magaalo ku sameeyo ayaa lagu heshiiyey. 17 September baa la saxay. Soomaali way ogtahay, Ilaahayna wuu ogyahay, ummadiisuna way ogtahay, caalamkuna wuu noogaa. waxaan soo bedelay ee gaar u saaray Garbaharre iyo Gado doorashadoodii iyo kuraastoodii waa garaweyne. nin walba dadkiisii buu la soo baxaya, madaxweyne goboleedyadii iyo kuwii kaleba nin walba reerkiisii ayuu la soo baxaya, u soo sharaxanaya, u soo saaraya. waxaan farmaajo u diiday ma garanayno. Soomaaliya bal weydiinayna waxa farmaajo lagu diidan yahay reerkiisa miyayna ku jirin heshiiskii. waad ogeydeen Garbaharre cid u naxday ma jirin. Kenya habeen dheeraar way duqaysaa. Afrika tiri go'aanka ha laga gaadho oo bal la soo eego meeshan dhibaatada ka jirta. Djibouti oo dad Soomaaliyeed loo soo xil saaray waxay tiri Kenya saxa oo Garbaharre baa qaldan. oo Garbaharre Kenya saxa oo Garbaharre baa qaldan. oo lama duqay halkan shabaab baa jooga. qalbi madow oranaya shabaab baa jooga. hadalkoodii bay ku raaceen iyagoo nacab farmaajo nacayb ay u qabaan ayay arrinka been ka sheegeen. waad ogtiin Kenyana waa joogto, waxay u duqaysaa halkaas. iminkana baahana ku soo biiray dagaalkii uu kula jiray farmaajo, madaxweyne farmaajo kii isagoo magacaabay. dagaalkii uu kula jiray isagii 4 nin ee watay 6 nin ee reerkooda ahaa. dagaalkii uu ka guuleystay farmaajo isagaa ku guuleystay. dagaalkii waxay u bedeleen Gado iyo Garbaharre. doorashadii bay ka reebeen gooni u joojeen. waxay yidhaahdeen go'aan baan ka gaadhaynaa oo adiga iyaa ku siiya awooddaad go'aanka ka gaadhayso. Garbaharre Soomaali bay ka mid tahay, 4.5 ka mid yihiin. waa ummad Soomaaliyeed oo walba sharaf iyo karaamad Soomaali ka mudan. iyo adiga ku siiya awooddaas. wuxuu yidhi guddi baan magacaabay. guddiga qalbi madooba lagala shiraya. Soomaalidu waxay tidhaahdaa war garaadaamaa jira. qalbi madooba wax laga weydiinaya guddiga Garbaharre. guddigii Garbaharre ee uu magacaabay waxay la shireen Caynte nin la yidhaahdo. Caynte waa heritage, waa qoladii tiri Garbaharre iyo Gadiya in ciidan la geeyo waa dembi. ciidamada Soomaalida la geeyo halkaana waa qalad. waa in laga soo qaadaa si ay Kenya u qabsato oo u garaacdo. waa in laga soo qaadaa. raggii yidhi baa lagala tashanaya Garbaharre. warmayna caqligu shaqaynaya. Soomaali oo dhan caqligu ha shaqeeyo. ummadda Soomaalida aqoonta leh ee garaadka leh, garashada leh ee wax garadka arrinka waa inaad ka hadashaan. kan foowe yimaada oo ka hadla arrinkan. guddi baa loo magacaabay leeyihiin Garbaharre iyo Gado. kuraastoodii guddi loo magacaabay. maxaa keenay in guddi loo magacaabo? nacaybka loo qabo madaxweyne farmaajo ayaa waxa gaadhay markii isaga waxba laga tari waayey ee waxba laga qaadi kari waayey in qabiilkii la taarget gareeyay isagu ka dhashay. waxaan muuqda taargetka oo waa reerka uu ka dhashay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Gado wax kale ma gelin iyo Garbaharre waa reerka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ka dhashay ayaa la taarget gareynaya. markii isaga gacantiisii gooni kari waayeen, waxna ka qaadi kari waayeen, jabin kari waayeen, waxay u guureen in Gado weerar lagu qaado.
oo guddiyo loo samaysto oo laxannimo doorashadooda horta hoosta ka xariiqa haddii Garbahaare aana doorasho ka dhicin tii Kismaayana ma shaqaynayso Kenya laga soo shaabaday ma shaqaynayso waa sharci weeyaan sharciga dhigayata haddaana Garbahaare lagu qaban doorasho lagu qaban tii Kismaayana ma shaqaynayso labadoo wada socda miscalculation baad samaynaysaa guddi baan magacawnay yaa la magacaabayo oo 4 nin aad garanaysaan waa reerkiisi waa qabiilkiisi qabiil madaxweyne prime minister baano waana ogaataa Farmaajo wali still in a power wuxuu leeyahay wax la yiraahdo nuclear option ayuu wali haystaa oo waxaad malmaluqdeen iyo wixii aad sameeyeen oo dhanba maalin qura 00 ka dhigay asfala saafiin geynay ayuu haystaa isaga dalka ka mas'uula isaga xeer ilaaliyaha isaga ciidda iyo calanka ka mas'uula iyo sharcigaba waxaad ku kalifaysaa inuu Farmaajo hadlo oo dalkan soo fadhiisto saadii oo tiraahdo waa la inqilaabay adiga 8 reerkiina intaad u yeedhad tiraahdo waa la inqilaabay si waxaad madaxweyne tahay waxa sad wada guddigan magacaawda kuwii kuraastii banaadiriga u dhacay weyn reerku aqalka lagu qabtay Xuseen Guule lagu qabtay doorashadii banaadiriga halkaas lagu qabtay kuwan Garbahaare ka rabtaan lagu qabto halka lagu qabanaya doonaysaa in lagu qabto waxaan wax shaqaynaya maaha ma xishoonaysaan waxay Soomaalidu dhan arkaysaan baad ku socotaan waxaan waa qabyaalad waa Farmaajo darteed waxaan ugu sameeynaysaa ummadan oo Soomaaliyeed oo Soomaaliyeed ayaa rabtaan inaad duleysaan oo ihana ku sameysaan laakiin dadkan dad yeelaya ma marka hore waan ogaataa gadiga Garbahaare waa nimanka Kenya ka saaray dhulkooda ee u diiday inay qabsadaan waa nimankii qoladii shabaab u diiday dhulkooda inay qabsadaan waa awood aan la qarin karin oo la muquurin karin waana ogaataa marka hore dagaalka markaad meeshaad ku qaadaysaan adiga tiimkaaga iyo qoladii Soomaali inay hore u socoto diidaneed isbaaristayaashii dhulka iyo ciid iyo calanka iibinay ee heritage-ka iibinay ee taalooyinka iibinay kooxdii dagaal baad ku qaadeen imika Garbahaare laakiin dagaalkaas waad fashilmaysaan waxbana halka laga qaadi maayo ummadda Soomaaliyeed waa inaad ka hadashaan madaxweynayaasha maamul goboleedyada waa inaad ka hadashaan arrinkan waa inay doorashadu wada dhacdaa taas sax doorasho meel walba inay ka dhacdaa isbedelkan meesha la wado waa qabyaalad waa arrin qabyaaladeed waa qabyaaladii oo cad on loo imaamaday waxaan la wadaay waxaan Garbahaare lagu haysta ee ka soo baxay waa wax kale waa qabyaalad Maxamed Cabdullaahi Farmaajo lagu xumaanaya lagu haysta markii waxba laga qaadi waayay horena waan idinku sheegay gacantaanad gooni karay waa la dhukada idinkoo la heshiiya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la qaatay intaad Garbahaare weeraraysaan guddiyan u sameynaa odhanaysaan aad caynta kala tashanaysaan القبيلة نكي قبيلة دبنا الرادية تلفزيون كي قاتل مر والبا قبيلة كلها قرب صعد يرجع كلام كورير كايدين أيها تلقود دي بانو صارية والناس من قود دي بانو صمدين وحنا وح شقين يا ما وريديكلس يجونا كأقبل ما يريد Garbahaare أقبل ما ين قن نما قادنا يان هذا دي متوج يريد مر بين نلاش دانتا مر بين دقشي يكاي هندرج حاران دش هذا سكت حاجات دورة أبد كله ما قادنا إياه وحنا ضوضان هيسكو بيننا doorashadana invalid dhamaanteed waa la kasal garayn hadii siday tahay amba sidii lagu heshiiyay loo shaqeyn waayo oo la doonayo ujeedada Kenya amba arrinka Kenya in la hirgeliyo ujeedooyinka gurracan ee rufiyaannimada in la hirgeliyo ma shaqeynayso wishaysi adalkiisa qaadan maayaan horena uma qaadan dadka Soomaaliyeed reer gadana ka sii duwanba oo iyagoona dawlad baaysan bay la dagaalameen marka ummadda Soomaaliyeed ay ogaada arrinka ka hadla arrinka reerka qabyaalada lagu haysto ee Farmaajo isku reeriyiin lagu haysto la isku gaashaan buureystay ee meel walba la iskaga yimiday ee xataa heritage-ki joogan kuwii mareexaan baad waa geda waa mareexaan la oo ciidamada in la geeyo ma ahayn kuwiiba xataa loo yeedhay marka waxa weeye mididiinu usbay ku jabtay waxa la waxad Soomaali ka qaadaysaana ma jirto waxaad gadiya Garbahaare ka qaadaysaana ma jirto waxaad madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Allah xafide radiyallahu anhu wa rahima Allah wajhu haliyayga Soomaali wax ka qaadaysaana ma jirto aad baan idin salaamaya